mujtamac maanta aan ku dhex nool nahay markaa fiirisid waxa anaga dadka hadda maanta rogay oo maaragtay adduunyada rogay waa qabiilka iyo maaragtay in asaga loo dagaalamo in asaga maaragtay xoolo loo baxsho in asaga maaragtay la isku jeclaado in asaga la isku soo dhaweysto laakiin waa qadiyad maaragtay ahayd ilaahayna maaragtay uusan sheegin yani diintiisana aysan ku oolin qofka wax lagu soo dhaweysanayo waa maaragtay waa islaamkaas lagu soo dhaweysanayo qofka waxa lagula walaaltiisanayo ama lagula dagaalamayo waa hadba maaragtay millada iyo diinta hadduu cadow yahayna waxaa cadow kula noqotay inuu yahay nin gaala oo yaamahana qabiilkiisa cadow maada kula noqon hadduu maaragtay oo saaxiib ku noqonayana asoo kaafog oo cadaan ama maaragtay madow kaleeta ah iyo maaragtay wuxuu ku noqonaya walaal ku noqonaya maxaa yeelay waxa idin walaaleeyay waa maaragtay waa diin marka tacaaliimtaas iyo maaragtay mafaahiimtaas ay kelmaddu maaragtay ay cadeynaysaa oo ah xaalad nafsiya inay tahay oo kasoo hor qofka suluugiisana ka muuqanaysa kadibna dhaqan isku bedelayso haddii maaragtay jidkii la rabay ay imaan weyso